xisbiga mucaaradka u ciiday Somaliland ayaa maanta magaalada Boorama ku qaabilay musharaxiintii ugu dambeysay ee uga qayb galaysa tartanka doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciid injineer Faysal Cali Waraabe hoggaanka xisbiga u ciiday gobolka Awdal iyo taageerayaasha kala duwan ee musharaxiinta maanta uu qaabilay Rashid Ibrahim Isaaq gudoomiyaha xisbiga u ciid ee gobolka Awdal iyo Umar Meecaad oo ah gudoomiyaha gudida soo xulista musharaxiinta xisbiga u ciid ee gobolka Awdal iyo saraakiil kale oo ka hadlay ayaa soo dhaweeyay musharaxiintani golaha wakiilada iyo golaha deegaanka golaha wakiilada oo ah 6 xubnood iyo golaha deegaanka oo ah 6 xubnood ee degmada Boorama iyo golaha wakiilada ee heer qaran isaguna aan ku shaacinayno aad iyo aad baan horta u soo dhaweynaynaa xildhibaano runtii aanu xisbigan u soo xulnay oo ah xildhibaano gobolkeena ka soo jeeda dhamaantood waxaan leenahay mugiyo miisaan inaan siino oo codkeennana ugu deeqno 10 xildhibaan baan shaacinaynaa aad iyo aad waxaan islaahay xildhibaanadani waxay aad iyo aad uga wanaagsan yihiin kuwii hore shaacinay sababtoo ah hadda wax kaga dhiman oo xagga dawladda ay ugu noqonayaan ma jirto waxay kalsooni buuxday qabaan insha Allah baadana waxaan ugu ducaynaynaa kuwii guuleysta ee hela waxa ay u soo halgamayeen dhowrka bilood Ilaahay inuu siiyo oo ah dufcadii ugu dambeysay haddoonahay maamulka xisbiga u cid ee degmada Boorama iyo gobolka Awdalba aad iyo aad baan soo dhaweynayaa anigoo u sharaxan musharax xildhibaan golo deegaan degmada Boorama anigoo u sharaxan magaalada Boorama anigoo u sharaxan reer Boorama telekoontiisii maraya waxaan halka ballan qaadayaa inuu noqon doono ninka xisbiga u cid maayirnimada ugu tartamay inuu noqon doono ugu ballan qaadaya halkan golaha baarlamaanka u tartamaysa golaha wakiilada gobolka Awdal inaan ka mid noqdo horta waa aad baan ugu faraxsanahay hadduu alla idhaaho xildhibaanadii gobolka Awdal kii ugu daayira inaan noqdo golayaasha heer degmada inay ku shaqeeyaan marka cadaaladda wax waliba ay ka horreysiyaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay waad mahadsan tahay jasaakallahu khayr jaaniskaad siisay gudoomiyaha xisbiga u ciid Faysal Cali Xuseen hankayga iyo idinka himiladiinu marna waqtuubnaan mayso nin kale mansabkiisa igu ilaashan maayo waxa kale aan ahay odayga gudoomiyaha musharaxa deegaanka Cabdiraxmaan Cismaan Guuleed sababtay soo taagtay inaan noqdo musharax golaha deegaana markaan arkay gobolkii degmadeedii Boorama oo wadadii ay jajabantay meel maraan lahayn sababta awgeed inaan wax ka bedelo ayaan u imid horta aniga markaa waxa la iga rajaynayaa in barnaamijka xisbiga iyo baahida bulshada isku xiro oo aan la imaado anigu iyo kooxda ya sharaxan political manifest barnaamij siyaasadeed cad oo waafaqsan mabaadi'da xisbiga oo aan ku oleysan doono insha Allah taala halkii aan wanaagsantii ka dhigay inaan ka sii wado oo si balaariyo adigoo u eegin hebel iyo reer iyo waxaas marka waxa weeye isbedel baan doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in caawa soo bandhigteen dad tayo leh dadkan doonayna waddankan isbedel ku sameeyo ayaan isku mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryaa dadka inay soo baxaan kuwii himaladooda iyo dalkeen diinta u wadaagan ilaahay ka yeelan doonaya subxaanahu wa ta'ala doortay marka aamina aan waaba iska doorantay marka oo codka waxay waxaan lahaa haddii reer Boorama ka buuxisto waxaan lahaa atog dheer ka jaraxdid waan islahaa ma ogtahay aga Boorama awdal meel uga helay sida aamina u sheegan soo magaranaysaa ay tog dheer iyo
iyo awdal anna waxaan ku dhaartaa awdal iyo marooda jeex axmed diriya ciltire wararka warbaahinta SBC Boorama.